السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو شرفت بدن ee ku xidhan channelka. Mawduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay 5 qof oo aad gabi ahaanba u baahan tahay inaad ka fogaatid. Ma ogtahay in qof xun oo kaliya uu saameyn weyn ku yeelan karo noloshaada? Qofkaas xun ee aad la socotid waxa uu sababi karaa in uu bedelo oo saameyn weyn uu ku yeesho noloshaada. halka qof waxa uu bedeli karaa sida aad u fikirtid. waxa kale uu ka hor istaagi karaa riyooyinkaaga. dadku laba u qaybsamaan. waa kuwa adiga ku dhiirigeliya mar kasta oo jecel in aad nolosha meel fiican ka gaartid, iyo kuwa adiga waqti ka lumiya oo aan haba yaraatee kula jecelayn ama kula ogolayn in aad meel fiican gaartid. haddaba go'aanka adigu ku yaala. haddii aad dooranaysid qof ku dhiirigeliya oo kula jecel guusha, iyo haddii aad doonaysidba qof ku daaliya waqtigana ka lumiya. muuqaalkan maanta waxaan ugu talagalay in aan soo qaato 4 nooc oo ka mid ah dadkan xun aadna u baahan tahay in aad gabi ahaanba ka fogaatid. 1. dadka xaasidiinta ah. dadkan xaasidiinta ah waa dad ka xun guushaada, farxadaada iyo noloshaada jacaylba. dadka noocan waxay ugu farxad badan yihiin marka ay arkaan guuldarrada dadka kale. dadkani waxay waqtigooda badankiisaba ku isticmaalaan isbarbardhiga ay dadka kale isbarbardhigayaan, iyo in ay markasta jecel yihiin in aanay haba yaraatee qof kale ka fiicnaan. taas oo run ahaantii keenta farxad la'aan iyo murugo joogto oo ay naftooda ka qabaan. sababtoo run haddii aan isu sheegno, wax kasta oo aad qabanaysid adduunkan waxaa jira qof ka badan inta aad qabanaysid, ama wixii aad qabanaysid kaaga fiican. waxaba yaraatee oo dhibaato ah ku jirta intaas ma jirto. laakiin dadka noocan haba yaraateeba sida aan sheegay ma jecla inay arkaan qof kale oo ka fiican, waxaana oo ay markasta isku dayaan in ay qofkaas niyajabiyaan. gacmo kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan. la socoshada aad dadkan la soconaysid waxa ay marka dambe keenaysaa in ay saameyn kugu yeeshaan. waxaad marka dambe arkaysaa adiga oo ay xaasidnimo iyo cuqdada kaa buuxdo. xataa waxaa marka dambe iman doonta in guulaha aad noloshaada ka gaartid aanan haba yaraatee kuu dhadhamin. dadka labaad ee aad u baahan tahay in aad ka fogaatid ayaa dadka beenta badan. dadka noocan sida caadada run ahaantii way yara adag tahay in bilowga la ogaado. sida aan wada ognahayba beentu wax fiican ma aha. haddii dadka noocan aad markasta la socotid waxaa marka dambe imanaysa sidaan hore u soo sheegayba inaad caadada ay leeyihiin aad ka qaadatid. marka dambe waxaas arkaysaaba ninkaagii daacadda ahaa adigoo aanay beenta waxba haba yaraatee kula ahayn. teeda kale wax ka xun ma jiraan qof adigoo saa isu taagan been kuu sheegaya mar kasta. haddii aad la socotid dad noocan oo had iyo jeer been kuu sheegaya, waxaa marka dambe imanaysa inaad kalsoonidaada aad u yaraato oo macal dadkii kale caadiga ahaa aad ku kalsoonaan weydo. haddaba intii aanan taas dhicin waxaa muhiim in aad dadkan ka fogaatid oo isla markaa aad ku qabatid beena waaweynba aad xiriirka u jirtid. 3. dadka dhaliilka iyo canaanta badan. dhaleecaynta iyo canaanshuhu ma aha waxun mar kasta, oo sidaan ognahayba waxaad ka heli doontaa ama aad kala kulmi doontaa dhaleecayn iyo la talin kaaga imanaysa dadka ku dhow. sababta ay kuu siinayaanna wax kale maaha oo aan ka ahayn in ay ku arkaan adoo nolosha meel fiican ka gaadhay. taasi waa muhiim oo qof kasta oo inaga mid uu u baahan yahay. oo haddii amaad tiraahdeed keligee ayaa wax kasta samaynaya oo awoodi karaya, suurtagal ma noqonayso. gacmo labada jir ayay wax kooda gooyaan mar kasta. laakiin tan aan anigu ka hadlayaa waxa weeye in ay jiraan dad badan oo iska jecel inay wax dhaleeceeyaan, sababtan ka dambaysaana ay tahay in ay doonayaan in ay hoos ku dhigaan. oo dhaliishoodu waxay ku salaysan tahay hoos u dhigitaan iyo inay ku arkaan adigoo murugoonaya ama guuldaraysta. dadka noocan si kastoo aad wax fiican u qabatid waxaad arki doontaa iyagu uun kaa sheegaya wax xun. haddaba su-aasha meesha taalla ayaa adigaagan i daawanaya daawada, ma jeclaan lahayd in aad la socotid dad noocan oo wax kasta oo nolosha ku saabsan ka eegaya dhinaca xun, wax kasta oo aad samaysid ama aad ku dhaqaaqdidna ka sheegaya wax xun? taas oo adiga marka dambe kuu keeni doonta kalsooni darro aad ku qabtid naftaada. dadkan ugu dambeeya ee aan jeclaaday inaan iyagana soo qaato ayaa dadka xanta badan. dadka caqliga badani waxa ay ka wada hadlaan fikradaha ay hayaan oo ay isula yimaadaan. dadka average-ka ama dhexdhexaadka ahna waxa ay ka hadlaan dhacdooyinka, halka kuwa maskaxdooda ay yar tahay oo maskaxda ka daciifkana ay ka hadlaan dadka kale. dadka noocan waxay waqtigooda ku dhamaystaan ka hadlid ay dad kale ka hadlayaan un. marka adigaana daawanaya daawada, haddii aad doonaysid inaad nolosha meel fiican ka gaartid oo riyooyinkaaga aad kaga rumaysid, waxaad ogaataa in ay muhiim tahay inaad dadka noocan ka fogaatid. waqtigii aad iyaga dhegaysan lahaydna aad ku bixisid kaga rumaynta riyooyinkaada. haddii ay jiraan dad aan haba yaraatee ka xishoon ama ka xumaan in ay kuu sheegaan siraha waaweyn ee ay ka hayaan dadka kale, waxaad ogsoonaataa inay adigana taasuun kugu samaynayaan.
oo sir kasta oo adiga ka hayaan ay la qaybsan doonaan dadka kale sida ay adigaba kula qaybsadaan siraha dadka kale sababta ay sirahaaga dadka kale ugu sheegayaan wax kale maaha oo waxay caado u noqotay ama qayb ka mid ah noqotay kaalida ay dadka kale ka hadlaan taas aan ula jeedo inaan haba yaraatee wax micnaha u lahayn ama aan iyaga xaggooda waxun u ahayn inay faafiyaan ama ay ka hadlaan siraha waaweyn ee dadka kale labada negatif ee la socoshada dadkan ay leedahay ayaa ah in marka ugu horeysa aad dembi shaqaysanaysid marka labaadna aad waqti badan ku isticmaalaysid dhageysiga aad dadkan dhageysanaysid iyo waxyaabahan aan faa'iido kugu jirin waxa laga yaabaa in dadka qaar ayba ku isticmaalaan maalin kasta saacadaas oo ay kaga hadlayaan dad kale haddii waqtigaas ay gelin lahaayeen noloshooda iyo mustaqbalkoodana waxaa hubaal ah in ay maanta meesha ay joogaan meel ka fiican ay joogi lahaayeen doorashada dadka aad la socotid waxay go'aamin kartaa mustaqbalka noloshaada go'aankaasna adaa gacantaada ku haya haddii daawad fiidiyoga uu qanciyey laagta iyo subscribe-ta naga ilaawin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu